soo gudbino intaynaan u gudagelin barnaamijyadaas aan neehayno bal marka hore ku soo dhawaada dadyooga faraha badan ee adduunka dacaladiisa jooga ee markasta fikradaha iyo balse u qabaan kaftanka siyaasadda iyo waxay ka aaminsan yihiin ayaa iyagu noo soo gudbiya bal nala soo ku soo dhawaada oo nala daawada. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقو عبد الرحمن عبد الله حسين وحن كنا نولي دالك جرمالك وحن هالكا نقول تهنيدين يا همبليانا وقدر يا إن برنامجك كفتك السياسة أي برنامجك أصاد دياري علي حراري سيدو كله ودادهين جري عنك وقوها ياسين دعالي سيدو كله بدري أو كله أمانتي واني سلامية وحبا دبكي نوقبتين واد صعوتان وضفي عمبك صعوتان واحد صعوتان وضضي هاي جيسيغا دول كيسا وشو هرسيدا كيريدا ديشاي جيدكا هبوء كوغبرارتادا كوميسيغو هوركعو واد شقينيسان ددكينا شقينيسان ددكينا u tilmaantaan mindiyaha qarsoon ama seefaha qarsoon ama godadka loo qodayo ee loo maleegayo iyo shacabkiina u ifsaan haniyo jabina kulli qaar xunoo Xuseen way la soo hadlayaan laakiinse waxa looma joojiyo waxa kale oo aan idinka codsanayaa muuqaalkii bishii hore aad duubtay waa inaad bisha dambe sida wax uga bedel lahaydeen farankeeda aad qabataan toddobaadkii hore muuqaalka duubteen toddobaadka dambe sida wax uga bedel lahaydeen muuqaalka muuqaal ka casrisan aad u keeni lahaydeen waa inaad samaysaan edictarada waa inaad sii xoojisaan shaqeeya oo shaqeynaysaan lama moodayo dadka qaarkood in maangaab kuma moodayeena dadkiina wax u qabanaysaan laakiin xaqiiqan ugu xanaamsanayna dadkiina wax u ifinaysaan waan idin taageersanahay waxaan idin leeyahay wax badan baa soo bandhigtaan ku fanaan iska dhigayo oo fanka koomi gelinaya in han noqonina oo dhaafa oo ka badiya in idaacadaha Soomaalida ee TV-yada Soomaalida 1999 ka taagnaayeen ilaa hadda taagan waa inaad dhaaftaan saasaan lagu taageeraya waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mahmaa xarabiya waxa tiraa xaraka allaha baraka xarakada badan baa ku jirta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan islaamaya yaasiin ducaale بدري يعلي حرارو برنامج صوت ديارية دمانتي وحن لي والسلام عليكم ورحمة الله waayahay halkaas waa u jeedaan idinkana waxa la idinka baahan yahay qof kasta meeshuu joogo fakarkiisa waa muhiim waana loo baahan yahay inaad nala wadaagtaan kaftanka siyaasadda oo waliba nagala qayb qaadataan oo nala socodsiisaan waxyaalaha ka dhaca nin waliba meesha uu joogo haddaba bal cali xaraare aan weydiiyo bal wuxuu maanta inoo hayo cali bal soo dhawaadiis aad iyo aad baa mahadsantahay yaasiin sax qodobo fara badan ayaan halkan ugu hayaa waa koo inkastoo mikrofoonadeenni maanta ma qabowga dhex maadinto qaar baa shaqayn waaye haye waaye bismillah aan ku bilowno socdaalkii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wuxuu soo galay socdaal dheer oo uu ku gaala bixinayay gobollo fara badan oo Soomaaliya ka mid ah maamul goboleedyada Puntland oo meelo badan tagay baan eegi doonaa galmudug oo uu iyana booqday waxaan tagi doonaa dabeetana haddii Ilaahay ku runyahay meelaha kale ee uu booqdo waaye runtii إلى حد سأد أبى حد وين أي لو سودوي مقالة الجروي مركو كسودي ذاتك أطلب بعض الصباحي وحيو أكيد حل جل دورني فرماتش ذاتك أي أريق صناعي حل اللمدة وهذا البطلان كذا شيء وتجد وين وتروح واحد فريتانك إيربورتكا الله ما قدر إمك جنرال محمد أبشر أدينا يكون هاي furitaankaas ayuu dabeetana soo dhaweyntii deegaanada markuu arkay ayuu jeclaystay in degmooyin kale uu ku sii darsado oo isla Puntland haye aan ka bilowno airportkaas haye dadkii hadlay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha hore ee maamul goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Faroole waxaa kaloo hadlay madaxweynaha haatan Puntland عبد الله محمد القاس وياه لبا بيهوستود اسكو هراتده iyaga is og bismaado tirada iyaga yaqaanaha horta iyadoo madax madal weyn ahayd oo dowladda federaalka joogto
ayaa waxa ka muuqday in ay isdurayeen oo ay isjuqajuqaynayeen oo dagaal weyn uu ka dhaxeeyay Faroole iyo Cabdiraxmaan Algaas labadoodaba laba madaxweyne midna kii ka horeeyay midna kii ka dambeeyay xilligii doorashada oo kale markay ololaha ku jireen ayaa la mooday laakiin labadooda markaan eegay xilligan wax aqli badnaa oo maskaxdiisa ka shaqeysay Cabdiraxmaan Algaas والله وعجايبي هي Faroole aad buu dagaalamay dagaalkana wuxuu horta sheegay airportkan Garowe ee la sameeyay iyo mashaariic kale oo laga sameeyay Puntland oo airportka Boosaaso ku jira iyo dekada wuxuu dhan inuu soo sameeyay Cabdiwelina aanu magacaas iyo creditka aanu qaadanayn isagu xaq u leeyahay bal marka hore intana wax kale eegin aynu eegno isagoo u manna sheeganaya reer Puntland oo airportka aniga adeer sameeyay iska leh Faroole isagaa saxiixay oo yiri go ahead tii kale uu Hargeysa dhammaan lahay hadda maanta halkan waxa soo gaarsiiyay waa dib u dhac wax ka saaciid magaca sheegato anigu magac ma raadinayo ilaa maalintii aan joogo mashruuca soo helay wixii kale aan kharash aan ururinay aan dadka ka ururinay ilaa hadda waan ugu ilaalinayo oo aan dul joogo waxa ka dhiman aan ka warayo cidoodu ma jiro sida aan ugu eego sidaas ay tahay wax magaca aan ka doonayo ma jirto aan ajrahay wixii ka duula ama laga qaado iyagoo jiran ama isticmaalaha baan ajir ku helay waxaan idin sheegayaa innamaa nudcimukum liwajhi illaah laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shakuuran wey aniga waxaan qabtay halkaasay ku fadhiyaan wajina haye meel baa dhigay waaye waxaan ku xijinayaa markii uu dhageystay hadalka Cabdiraxmaan Algaas ayuu isna wuxuu u hadlay sidii hadal ah Faroole hadalkiisii ka daba tegi maayo shir looma wada uunsiyo madashana madashii aan aniga Faroole ku garnaqsanaynay maaha hadal sidaa u eg oo qurux badan oo ah arrinkan halkan lagu furayo meel kale ayaan kaga hadli doonaa ay soo jeediyay runtii hadalka aad baan uga helay waa kan isna Cabdiweli warkii hadda halkan madaxweynihii hore uu ka yiri أنا عندنا كجواب مرة وصلت وماشي ذي معها ماشي ذي معها. سؤال صوحة ترى على بالي. أنا نكى صول السيد الجدع. نكى دورة عشاء. بركة. يوم يا خير أيام يوم الجنة يا لمانتي. والله هو واي وما هذا بدي باطل. labada nin airport u furay reer Puntland in iyaga ana sameeyay ana adeeray la isku qabsado waxa keenay waxa keenay magaca meesha loo bixinay airport waxa la isku haystaa magaca dagaalku waa magac horta magacu ka bilow marka magacaas dib ma baayo Cabdiweli iyo kooxiisu waxay soo diyaariyeen General Maxamed Abshir in lagu magacaabo airport ilaahay janno yarxamasi amiin laakiinse Faroole wuxuu rabay in loo bixiyo airportka Cabdiraxmaan Faroole airport والله هو عجايبي إلا هو مقدره dadka loogu magac daray dhibaatada Faroole haysta xooy Puntland oo dhan wuxuu yaqaan Garowe marka reerkiisu musaad eegay reerkii badan magaalada jooga meesha maana iska leeyahay Puntland oo dhan iska leeyahay ay leeyahay marka wuxuu ku aaminsan yahay Cabdiweli inuu yahay nin marti oo galkacay ka yimid ajnabi Cabdiweli gaasi waa barti baarsi haye marka Faroole nin dad midayn karayo uma eka Puntland la wada leeyahay uma eka haye hadii qolo Puntland ay wax abato oo tiraaw arrinkaas aan ku caawinaa Faroole ka soo hadlay Muqdisho haye oo qoladaas hadii meesha u soo dhawaato Puntland waa baabaas hal ilaaliyo laba madaxweyne oo isku hoos nool oo isjuqajuqaynaya ay u muuqataa haye waxa weeye Faroole waxa ku fiicnay inuu sidii oday u hadlo oo uu yiraahdo airport ka wanaagsan ay noo yimi inagoo dhan ayuu inanfacaya inagoo dhan ba ka wada qayb qaadanay asaas weey madaxweynihii ku horeeyay midalan Abdullahi maya ninkii ka dambeeyay cadde muuse ayaa xoogaa bilaabay Faroole xoogaa ku sii xijiyay
waxaas وقريسديب وقريسديب waxa dhameystiraya عبدولي واساس marka saddexda madaxweyneba way yeelanayaan credit sidoo kale dekadii wixii waa la mid laakiin ninna ma oran karo farmaajo magaalada qardho la yiraahdo faras iyo gooshaala ayaa la siiyey masha Allah wuxuu qaabilay boqorada iyo ugaasyada gobolka uu ka tagay dabeetana jidka ayuu dheer ayuu baabuur ku maray wuxuu tagay meel la yiraahdo armo oo laamida ku taala ama laamida dhex marto aad baa lagu soo dhaweeyay halkaasuu barqaystay xoolaa la qalay haddii la kurigu ka khudbadeeyey qardhana uu ka soo khudbadeeyey dabeetana waxaa jidka sii taagnaa iyagana meesha la yidhaahdo ceel daahir reer maakhir oo jid ilaa ceergaabo u socdaa uu uga bilaabma halkaa dabeetna madaxweynaha waa lala soo xidhiidhay in halkaa iyana lagu hilbo cuno ari lagu qalo si fiican laysu salaamo warbixinta jidkan loo sheego iyo wuxuu uga baahan yahay dabeeto madaxweynaha markii hore aqbalay arrinkaa ayaa haddana telefoonkii labaad ku sheegay reer maakhir inaanu halkaa kula qadayn karayn iyagoo suldaankiina uu hogaaminayo talo sababtaa maxay ya dabeeto aad bay uga xumaadeen reer maakhir madaxweynihii oo maalintaa la qadayn waaya marka halkaa ceeldaahir la yidhaha farmaajo iyo wafdigiisu gaadhigu breegun buu ku yara qabtay in yar gaadhiba kasoo dooga waa isa salaameen kama khudbadayn kamana hadlin intaasaa iyagana kala gaadhay ma khudbadayn dabeetna dadkii meesha yimi dareen baa galay dareenkaasi waxa weeye xilligii dowladda maxamed siyaad barre iyo reer maakhir iskuma fiicnayn dabeetna maxamed siyaad barre oo xilligii dowladda ay dhacday isagoo buur dhuuba jooga ayaa la weydiiyey yaa laska sheekaysan jiray marka waa lala kaftama waxa la yidhi inuu reer maakhir iyo adiga dhowr 20 sannadood meesha haysatay isku meedana fiicnayna maxaa khaldanaa marka odaygu xilligaa waa oday Soomaaliyeed wuxuu yidhi waa laygu diray reerka waa laygu diray farmaajo imika lafteedana de عبدولي بقى قرب سعودي يلي إن ضعف قلدر قلدرنا بس مري قلدرنا حقنا وقت السين حقنا وقت السين يعني نوريني يجي بريقهم كوي رقم مركز دردي أيا ولي صوت فرماتنا وكنا حريم محمد سياد برا أيا ولي نكتب حلو شيء قلدا وإسنافين إن كستو جديد وديت لسيسي هي فرماتو أي بوساسو سكوار كان بوساسو قد بتكين بوساسو قد بتكين oo ay halka ku qaabileen dhowr qof dabeetana boosaas uu tagay runtii aad baa lagu soo dhaweeyay sawirada dhammaantood hal mar baynu isku daba xidhaynaa sidii loo soo dhaweeyay oo gobol walba qaarkood waxaa la siiyey qolaa waxay keentay hal hidiya dhaqankii ka buuxo oo ay u bixiyeen maandeeq waa uwaaska dishiisha عشمات في عم بوسمي ميل بير نكا iyo reerkiisu oo aan Puntland ka dhex muuqan jirin doorkan waxa isugu jiyeen inay yihiin dad jira oo aan la ignore gareyn karin reerku aad buu sabaxeen awal maalmihii hore ayaan eegayo reerkaasi siyaasadda kama dhex muuqdaan hal nin baa laga magacaabaa la Saciid Maxamed Raage markasta soo noqda oo dawladda kasta loo soo shaqeeyay Cabdullaahi Yuusuf waa isagii عدموس وسعيد عدينا كورتي كلا فرول وسعيدكي عبدول وسعيدكي وغيركم يعني نكرة بالله سني كنا دمر بمش صاد ما تقدر أن نكرة ضيقة أي ما مركو هرلي المغرب وباش وبالسكا
degan oo aan siyaasadda ku lugay maalmihii heesaha aynu beel walba aynu u qaadaynana waxaanu soo sameeyey hees la yidhaahdo ila dadka kale siyaasadday ka hadlayeen hees ay ku jirta badda doon baa marayso doon baa marayso weli mujawajaawi waxbay sidaa marka xagga baddu bay eegtay badda dhinaca badda ku faafsanay doorkan sida badda u eegeen ayaa xagga muqdisho laga geeyay marka aad bay ugu soo dhaweeyeen aan ka gudubno gaalkacyo tagay madaxweynaha gaalkacyo iyana waxa lagu soo dhaweeyay gacmo furan iyo si qurux badan weliba helikobtaro ayaa dulmariyay dabaaldeg baa wuxuu tegi doonaa saacadahan soo socda barnaamijka intaan duubnay ka hor cadaado iyo galmudug iyana kolley waxaan filayaa sidaas la eg ayaa lagu soo dhaweynaya farmaajo waxaa u dhalatay dowlad kale haddana iyo yididilo kale soo meeshan xabar ama muqdisho stress iyo buuq waa ku hayay laakiin halkan aad buu ugu nafisay marka bal sawirradii oo dhan aynu isku daba xidhno علي ودد فرق بدون وي والله والله يا xilliga la dooranay kala weeyay sama farmaajo waa yaabay waaya aan runtii waxa dagaal ka dhacay meel ay raad tukaraq oo Soomaaliland ciidamo ka tirsan iyo Puntland ay iska hormaadeen dad badan baa isweydiin xilliga Soomaaliland iyo Puntland oo labaduba nabad ahaa maxaa dhacay qaar badan baa leh dowladda cusub ee weerarka waxa soo qaaday Soomaaliland marka waxa la isleeyahay Colonel هو مصبح مياه دربة بلعبة هاوشن iyada dawladda ka horeysay nabad meesha laga dhaxarkay waxna ay doonaa tuunka dadka khasaarihi ka dhacay sababta meesha loo weeraray iyo waxa ka dambeeya waayahay tukaraq horta ciidamada weeraray waxa weeye waa dadkii deegaanka wasleeyigi Soomaaliland wala sii kala yahay haye warigi deegaanka haye waxa hogaaminay baasha ambaashi haye waa deegaankii marka shaarka Soomaaliland hasito laakiin cidda weerarka qaaday ee meesha qabsatay wareerkii wareer sool cidda ay ka qabsadeen wareer sool iyagu ma kala qabsadaan marka dadka u haysta in dagaal iyo dhiig iyo bilaay ku daadatay ma aha telefoon inta la soo diray ay beeroon soo soconay ka baxa meesha ciidamo kuma dhiman wax dhacay jabal noo sheegay cidda ku dhimatay cidda ku dhaawantay gaari laga ma qabsan marka haddii aragtid dagaal laba ciidan iska hor yimaadeen ay iska hor yimaadeen way isdileen waana cid ku dhacmin dagaalkaas uu siyaasadeysan marka waxa ka jira aaga waa la subaneeyaa ali khaliif galeer imsa leereeni maxaa loo qaban waayay inta telefoon loo soo diro ayaa la oran jiray ka bax markaas isagoo ka sii maqan 5 minutes ayaa la oran jiray meesha waan qabsanay ali wala raadinaya marka ali raadinay ma ahayna ali wuxuu ahaa la badbaadinayay oo aan la doonin la qabto waa ka sii bax ila finally ninkii sida uu carariyay uu isgeeyay hadana hargeysa marka siyaasaddu waa siyaasad waxa annagu dhinaca ma raacsan laakiin sida xidhan ma sheegin tukaraq way qabsadeen nimanka reer sool dabeetana hanjabaado iyo colaad ayaa soo baxday intaan hanjabaada gelin dagaalkan muxuu ku salaysan xuduudo la soo xidhayo Soomaaliland ay doonayeen inay qabsataba mise wuxuu iska ahaa mid wax kale ku salaysan reasonku wuxuu ahaa on oran karay anigu dhoolatus siyaasadeed farmaajo ma yimaas hawshaas farmaajo bay ku xidhnay haddii Soomaaliland ay soo xidhayso xuduudkeeda dagaalkan ka hor buu dhici lahaa
ama farmaajo kadib uu dhici lahaa laakiin waxaa la tusaya farmaajo leeyahay reer Somaliland baan la yiraahdaa barasho wanaagsan ilaa garowe ayaan sii soconaynaa farmaajo imaashihiisa khalkhal siyaasadeed oo iyo dagaal uu ku cin karayay ma jiro marka runta dalka la difaaco oo la dagaalamo horta marka ugu horeysa dagaalka wax lagu baaqo dagaal maaha oo anoo ka dad Soomaaliyeed oo walaalo ah laakiin si xaqiiqda dhabta waxa weeye dhinacan Somaliland reer Soolun baa ku dhimanaya Abduul Ciid uu leeyahay dagaalamana waa reer Sool kale iyana way ku dhimanayaan marka reer Sool meel dhexe ay horta ku baaba'ayaan labadaasina waa Soomaali Somaliland iyo Puntland waa meelaha Soomaaliya ugu nabadda fiican leh horta runtii waa ayaan daro in iyadoo aanay jirin sabab weyn oo dhiig loo daadiyo oo xabad loo rido oo ma garanaysaa waxa loo sameeyay cabsi gelin dadka la yiraahdo in xilligan la bilaabo waa ayaan daro waxa ay labada shacab laba isu gudba oo wax kala iibsada oo aadiyaabisid oo quruxda ka muuqato meesha iyo walaalnimada laakiin tii waxaad moodaa in siyaasad dad gaari in ay qoreenayaan dabeetana markii la arkay balorta aynu eegno Cabdul Maxamed Algaas oo baaqiisa dhinaca dagaalka haddaba waxaan shacabka reer Puntland gudaha iyo dabaddaba ku wargelinayaa inay u diyaargaroobaan difaaca dalkooda isla markaana ay garab istaagaan ciidamada difaaca Puntland si loo xaqiijiyo midnimada iyo wadajirka Puntland shacab ahaan iyo dhul ahaanba ugu dambeyntii waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed dowladda federaalka Soomaaliya daneeyayaasha xasiloonida Soomaaliya iyo beesha caalamkaba in maamulka Hargeysa uu mas'uul ka noqon doono awaabixinada ka iman doonta duulaanka qaawan ay ku soo qaadeen deegaanka Puntland wabillahi tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياك وايه إله بدبال هي قدومها برلمانك باشي أيا يسونا كهذلي هنشبات كله أيو اسمه قصدر سومالان بسنا باشن عنده يسمى كان يبو كتريان وحوي دقاق في السوق عليه وحنو شيء من شعب سومالان لوكاس إنه يهدو سومالان haddii ay sii socoto in loo diyaar garoobo sidii loo difaaci lahaa dalka waxaan kaloo hambalyeynanaa ciidanka Somaliland oo waajibaadkiisa gutay oo dhulkii weli xuduudii wax badan u hareen laakiin maalinba meel kusii turkaya marka intaasaanu maadaama wax isdhaceen waxaanu garanay golayaasha in laga جبهة كسوق مش يا هي لبضوا بعض بقى دتك وعليا دتك يلا وعلي لو من حبد ريد مايو لكن واحد دونيان إن أمضي لسكوب بعضه في Somaliland ريب بتاعنا حلو باقينا إن دجال أنا حلهين وحيمكن لبضة يسكو هيان وميسكي لأن مشرته سياسي درادد من كست أو كنا أو شعب كرير Somaliland ريب بتاعنا وإنه أجا عقل يسوق شقيسية إف آخرته الدجال حلمه بساس وايه هي gaas iyo baashi labadooda reer labada beelood ee ka soo jeeda ayaa hawdka isku leenayay barihan oo dhan hawdka labada reer ka soo jeeda labada reer ka soo jeedaan labadooda midna intuu tagay war kala jooga ma oran wareeraha kala badbaadi marka dagaalka reerahooda baasho iyo u dhaxeeya gaas iyo la soo aadan Somaliland iyo Puntland yaanu ku wareerin dagaalka bilowday waxaan eegnaa farole oo isna soo dhaxgalay farole هذا الكيس بل مركه هره اسنا aynu ku xijin wada hadal oo xanafta leh way ku hadleen Abdi Weli iyo baasho ka dameeyay Abdi Weli ma oran karo argixisaan la dirirayo Soomaaliland ba taageero siinaysa waxay noo soo weerareen argixisaan la dirin naga jeeday Abdi Weli Cabdikixsan hore lama dirin haddana lama dirirayo dibna uma diriri doono example inuu ku firan bishii March 2016 markii Garaacad iyo godob jiraan iyo ayl ciidan kun ku dhow ay oo aad u hubaysan ay soo weerareen oo America uu joogay holiday buu sii galay wuxuuna joogay meesha la yiraahdo Virginia ayuu joogay
waa lala hadlo inuu yimaado ma imaan dagaalkii markii dadkii shacabka ahaa iyo ciidamadii halkan joogay wixii la ururin karay la urushay oo la galay oo laga guulaystay cadowgii maxaabiistii la qabtay buu garacdi intuu diyaarad soo jaarta garaystay Addis Ababa ku yimi isku sawir marka waa nin isku noole nin loo hadalkiisa loo qaadan karo rasmi ma waan ka xum farmadu wasleeday uu leeyahay waa umada yaan wareerin farwada dhowr qodob meesha ka eega weli dagaalkii isaga ka dhaxeeyay Cabdiweli Maxamed Gaas waa sii socda ayaa ka muuqda meesha wuxuu ku xumaynayaa Cabdiweli Gaaska ay hal dagaalamo ama dagaal ku baaqay wuxuu u arab laalaadinaya ama uu hadii ay ku reeyahay aad u dhowraya dhinaca Soomaaliland isaga waxaan ku tilmaami karayaa nin la xintamaya Cabdiweli Maxamed Ali Gaas isla markaasna dhinaca Soomaaliland xagga xididnimada ayuu xeerinaya ninkuna inuu xidid xeeriyo iyana dawaaba oo fiican yahay isagoo madaxweynaha markuu degan waa kii Hargeysa tagay waa kii tagay business iyo hawlo kale waa ka dhaxaysa waa soo dhaweeyay odayaashii shalay soo dhaweeyay inuu xoogaa farta ku fiiqo ayuu diiday Hargeysana wuu ku noqonayaa berito marka Faroole hadalkiisu hadal nabadeed iyo hadal odaynimo ma aha waa labada qodob ee midna uu gaas ku xumaynayo midna xididkii uu ku xeerinayo marka isaguna halkaas uu maraya markii waxa la eegay ayaa Yaasiin waxa la ogaaday dadka Soomaalida la yiraahdo inaanay heshiinba karinba cid ka xoog badanna aanay jirin haddii kale xoog badan marra ayaa la heshiin lahaa marka waxay jecel yihiin nin gaala in loo diro haday jir ama nin Ethiopia ka tirsan in loo diro la yiraahdo adaa Ethiopia u tag waxa loo diray ninka Kiitin la yiraahdo oo isaguna ma Kiitin wax weyn ergeyga qaramada midoobay Soomaaliland buu wuxuu yiri miyuu hawsha hada iska dhigo hada farmaajna dhulkan Soomaaliland mana soo marayo umana socdo digdigtiisa iyo banashaadkiisa iska ignore garay waxana joojiya waxa badla rido jaale madaxweyne ma aha xal ma 91 dadka yaan dib loogu celin okay bayday arinta wuxuu sheegay inay ka yeelaan haddii 20 Soomaali odayaal loo diro abadan dhinacan kale Puntland haddii 20 odayaal loo diro abadan nin cad ama nin amxaari ama tigray ku hadlaya ay ba ogolin Soomaalida iyaguna waxay isaga soo farbaxsanayaan maxaa ka galay arrinkaasina halka ayuu maraya waxaan dhamaantood u rajaynaynaa in ay nabad ay ku waaraan oo ay cabsida faraha badan leh iyo hanjabaadaha iyo waxan ay ka baxaan ay ganacsigoodii iyo walaalnimadoodii iyo ay isu gudbaan ayaan ka hadlaynaa inta wax qasaysa ee mas'uuliyiinta labada dhinacba waxaan leenahay adeerayaalow xaaladda idinku dagaalamaysan dadka masaakiinta xaaladda loo deji taasina waa taa waay waxaan eegi doonaa booqashadii farmaajo halkaasnu ka hadhana muuse bixi laftiisa ayaa booqasho ku tegay dhowaan Djibouti Djibouti markuu tegay maxaad Djibouti ka haysaa Yaasiin Djibouti de waa isku soo wareysteen bal madaxweynaha waa soo wareysteen barnaamijka hore aan ku soo qaadanay arrinka u weyn u tegay horta ahayd inuu u mahad celiyo marwada kawaad Djibouti khadrahayd oo qayb weyn ka qaadatay xilligii ololaha dhinaca kharashka iyo maaliyadda oo Muuse taageersanay in ay Saciid oo intooda waa isku family oo isku xaafad oo isaguna ganacsade weyna oo doonayay in uu halkii dahabsheel isaguna galo oo internetka badda hoosta mara iyo la siiyo iyo qandaraasyo fara badan arrinkan uu ku guuleystay marka jeegaantii oo isu mahad celinaysa ayaa booqashadaas ay ku saabsan waayahay arrimaha ka muuqday dadku hadal hayeen baan eegna waxa ka muuqday labada madaxweyne markay wada fadhiyeen labada caalan ka dambeeyaba waa calamadii Djibouti labada caalan ka dambeeya taas waliye marka madaxweynaha Soomaaliland caalan metelay qarankiisa oo ka dambeeya ma jirto ka dad badan ba halka fox ka saaray oo maxaa dhacay laakiin simple waxa weeye wayna ogaatidun
maadaama aan la ictiraafsanayn somalilan lama odhan karayo calankeeda laba dowladood ama laba qaran oo wada fadhiisa haddii abudabi uu tago sidaasoo kale bay noqonaysa ilaa inta ictiraaf laga helayo marka halkaa calankaa gadaasha la dhigo iyo ictiraafku way isku xidhan yihiin waa intaa ma aha jabuuti baa diidan somalilan maaha waayo taas waa taa muuse bixi baa hadlay isagoo u mahad celinaya madaxda somalilan dato ismaaciil cumar geelle oo ah madaxweynaha jabuuti uu saaxiibkiisa ayuu magaciisa garan waayey marmar waxaa jirta qof aad saaxiib lahyatiin oo magacuu ku gooyo magaciiba u gooyey bal muuse oo ka bilaabaya generaal wuxuu ku leeyahay madaxweynaha waddankan jabuuti ee haatan idinla jooga magaciibaa u gooyey iyo generaal sakariye iyo magacaankaas oo malaha dee ninka ciidamadii waa haysta kaa magaciisa u keenay laakiin ninkan kale wuu garan waayey orada aynu dhegaysano dadka jabuuti madaxweynahooda maanta jooga genaraal sakariye inay taageerada ugu badan ee nabadgelyo iyo nololba ahayd isagoo ay u geysteen slm iyagiyo shacabka jabuutiga waa taariikh aan dafriinka madaxweynaha magaciisa ku gooyey shalay aad joogto waa arrin foolxun sama marka mala calanka haddii la daba dhigi waayo ku xanaaqay oo magaciisi buu u gooyey hadda weliba isagu itaalka waa jabuutiyaan arrinka ugu muhiimsan ee kale waxa weeye wuxuu sheegay in ismaaciil cumar geelle uu slm ka tirsanaa ka soo galay haddaan slm ahayn oo guri jirin oo raashin jirin oo biyo jirin oo cusbitaal jirin oo meel askari station police jirin oo meel tuuga lagu xidhaya kooxdilaa aanay jirin waftigii ugu horreeyey dal aanu tagnay jabuuti bay ahayd aniga iyo diksi iyo cismaa ninka la yidhaahdaa cumar boole xangulle duksi baanu hogaaminayey allahu naxariistay xaaji xasan gureg baanu ugu tagnay wuxuu u ogolaaday markiiba maxaa idinku daran buu yidhi biyo la cabbaanu yidhi tayankii geedgeedla mashiinadii la geeyey halkaanu ka qaaday dowladdii soomaaliyeed dagaalkii slm la gashay qaybta ugu weyn ayuu ee dhaqaalaha marka ismaaciil wuxuu ahaa dadkii burburinayey soomaaliya marka loo eego hadalka muuse bixi marka dad badan baa imika ogaaday in ismaaciil cumar geelle uu kharash badan ku bixiyey inuu soomaaliya ay burburto arrinkaasna odagu wuu ka dhawaajiyey waa fahansama taasina waa tahay waaye waa hagaag waxaa jirta sheekooyinka boorame tegi doona boorame oo adigii tegay oo dhowr jeer meelo badan marmaray waa hagaag laba wariye ayaa ku xidhan magaalada boorame wariye waxaa la yidhaha axmed diiriye ciiltire SBC TV ayuu u shaqeeyaa wariyaha kale waxaa la yidhahdaa cabdilaahi xuseen dabshid kalson TV ayuu u shaqeeyaa labadoodaba maxkamaddu waxay ku xukuntay 2 sano oo xadhiga taasaa wareere war maxaa tiri 2 years baa lagu bal dibka keen waxaa lagu eedeeyey in ay qoreen in awdal gobolka la yidhaahdo lagu tababaro ciidamo oromo ah oo Ethiopia la dagaalamaya waa kays aad ballaaran marka labadaa wiil war beena oo Ethiopia lead ku ah ayaa lagu haystaa dabeetana maxkamaddu iyadoo raali gelinaysa Ethiopia ayaa 2 sano ku xukuntay 2 years bilaaqsi waaye waxaan markaa daba galay waxa wiilashu ay Ethiopia iyo oromadan iyo waxaan sheegan waaye maxkamaddii waxay tidhi wiilashu labada wareeye waxaan ku xukunnay 2 sannadood kadib markii ay keeni waayeen qoraaladoodii caddaymo muujinaya in dembiga ay galeen marka maxkamadda waxaa ka khaldan exactly wiilashu ma iyagaa keenaya dembigii loo haystay mise idinka ciddii ku soo eedaysay ayaa keenaysa eeg bal maxkamadda eeg marka cadaalad daradani xagay ka timi labada waxay ka hadleen
duqa magaalada boorame maxamed xuseen maydhane ninka la yidhaha oo reer boorama oo marka horena golaha deegaanka ka yimi ayaa baabuurkii dawladda ayuu bledkii ka bedelay taargadii meel nambarkii gaadhiga mid private ayuu ku dhijiyey si aan dawladdu u odhan gaadhiga dawladdaa le ama de uu xalaalaysto marka wiilashii waa gaadhiga soo sawiray sawirka waan keeni doonaa qaar ka mid a ayaa soo sawiray oo soo bandhigay oo ka hadloo yidhi gaadhigan xukuumaddaa iska leh marba bileed baa lagu xidhaa arrinta aad buu u xumaaday ninkaas waxa kale oo uu ka xumaaday horta baabuurka aynu eegno sawirkiisa oo laga helayo gaadhi sharci darro ah uu iibsaday maayirka degmada boorama mudane maxamed xuseen maydhane xogahaasi oo daha ka faydaya marxaladihii uu maray baabuurkaasi suuqa madow lagu kala xaraashtay wakhtigan kala guurka ah waxaanay shabakadu helaysaa sawirro muujinaya taarikooyinka kala duwan ee baabuurkaasi lagu dhejiyey daawadayaal sawirka koowaad ee idiin muuqda ayaa muujinaya in baabuurkani uu gacanta maayirka soo galay isagoo leh lambarka shacabka ee uu barasaabkii hore gobolka awdal mustafa shiina ku soo iibiyey isla markaana nasiib darradu waxay noqotay in nambarkaasi aan loo daynin baabuurkaasi balse laga tuuray maalmo kadib markii uu gacanta u galay dawladda hoose ee boorama sidoo kale sawirka labaad ayaa muujinaya baabuurkani ay maayir maydhanaha ku sifoobay musuq maasuqu uu iibsaday oo lagu diiwaangeliyey taarikada baabuurka qalfoofkiisu dhex yaallo dawladda hoose ee magaalada boorama oo nambarka dawladda leh xaqiiqooyinka ayaa muujinaya inaan indhaha layska qaban karin musuq maasuqan jira ee salka ku haya labada baabuur ee taarikadooda loo kala furay lana damacsan yahay in mid ka mid ah la lunsado iyadoo oo ay badan tahay in la lunsado baabuurka وكاسمال مربى تارجو تاس واتا مستر ميراني وكل أد وحناقي waxay video ka soo duubeen sariibada ama kawaanka xoolaha lagu qalo ee boorame oo runtii nadaafadiisu ay aad u hooseyso zero ka hooseysa marka qiimeeyo waana lagu dhimanaya waxaana laga qaadayaa runtii anu video-ga aan daawan kari waay dadkana uu soo bandhigi doonaa eedii magaalada oo dhan iyo shimbirtan xuurta la yiraahdo oo aan iyagu istaabaneynba ayaa uuska iyo uurku jirta iyo dhiigga iyo waxa ay faqanayaan aad yaabaysa marka banaankii ayaa eedii soo dhaaftay gudihii saribada ayay sanbabkii iyo cuntadii iyo lafihii ay ku cunayaan marka dadkii iyo waxa isku dhex jira eedii okay dhiiggii ayaa tuubooyinka meelihii banaanaa ee uu ordayay ayaa isna istaag ku noqday meesha ma soconayo dhiiggii marka xinjirihii iyo wixii dhan baa fadhiistay meesha uma qalanto in hilbaha lagu cunayo boorame taagantihiin baa la yidhi meesha xumaanta ay leedahay iyo daayaca ka muuqda aad iyo aad baan uga qiiroonnay oo yidhaaheen halkani waxa ku shirkada ayda iyo maxay hayday xuurta war maxay tahay waxaan ardaankana way quraacanayaan bay noogu jawaabeen lamana gali in halka laga keeno caafimaadka meesha soo kale ridaha in loo xiro weey ilaa inta laga nadiifinayo dawladda hoose iyo duqa magaalada ay hawshaas u taala iyagu taala ceebta u weyn cidda ku imanayso waa Mr. Maydhane marka Maydhane halkii uu nadaafada kharash ku bixin lahaa dhismaha qurxiisa daabas meesha xagga sare laakiin marka dhexgashid waa dhimasho cuntada halka laga soo qaadanaya aanu deema kulli si loo cuno ma garan marka Maydhane wuxuu ka xumaaday ciyaalka kawaankii soo bandhigay in ay arrimihiisii soo galeen marka kuwan wuxuu sidhi waxaad u samaysaa case ay aakhiro dir wuxuu la kaashaday
gudoomiyaha gobolka nin la yidhaa oo cabdilaahi jibriil gaaxnuug baa la yidhaha mister gaaxnuug iyo isagu kharash ayaa kaga baxay mashruucaas maydhana wuxuu ka baqayaa in booska laga qaado sababtoo ah saylac ninka isla badha saabka ah iyo isagu waa isku xaafad marka reerka intii kale ayaa wuxuu leeyihiin mar kasta isagu wuxuu ka baqayaa in la yidhahdo inuu reerkiinu laba iskuma heshaan inaad xaggaana badha saabka noqotaan saylac xaggana ka soo baxdaan oo reerihii kale oo dhan aad la ignoor gareeyo arrinkaasna wuxuu ku hayaa maydhane wuruur aad u ballaaran waad fahamtay soo ma marka dee maydhana hadduu la iman lahaa waxqabad iyo wanaag halkan baynu ka soo jeedin lahaa xataa saribadda imika hadduu wax ka qabto isla toddobaadka dambe ayaanu sheegaynaa in nadaafaddii uu hagaajiyey uu wax wanaagsan keenay isaga uma soconno laakiin waxaa jira ayuun baynu ka hadlaynaa labadii ina marka wuxuu garhka u geliyey isaga iyo jibriil oo ah guddoomiyaha ayaa isla kaashaday iyo ninka maxkamadda haysta dabeetana lacag baa lagu bixiyey laaluusha in la xidho 2 sannadood ayaa ciyaalka yar loo diray taas waxay muujinaysaa in la caburinayo saxaafadda dhabta ah ee xaqiiqda dadka u soo bandhigaysa ee wax saxaysa ee wax la hagaajiyo ayaa mas'uuliyiinta iyo madaxdu meel kasta wax joogaan ay dagaal ku hayaan waxaan u rajaynaynaa in dowladda Soomaaliland ay soo dhex gasho oo labadaa wiil aan la sii daayo labadaa wiil waxa weeye cabdilaahi xuseen dabshid lagu naaniso ama magaciisa saddexaad uu dabshid yahay iyo wariyaha kale axmed jeeriye ciiltira la yidhaahdo marka iyagana waxaan u rajaynaynaa in xadhiggaa loo fudeeyo waayahay waanu ka gudbi doonaa dalkii soomaaliya guud ahaan waa la daldalanayaa khayraadkiisii oo dhan ayaa yaasiin wuxuu isugu soo ururay dubay دبي maxay Soomaaliya u daba joogtaa waxay doonaysaa Dubai Soomaaliya in ay xaalufso gibigeedba marka Dubai waxa la geeyay ruwaayadii dawooyinkii aan hadii la ku shimbrihi waa la qaaday shirkadaha yimi aan waxa kamid ah shirkadaha yimi ee shimbraha waarsanay qaw meesha la yiraahdo oo basaaso 20 kilometer u jirta shirkad baa la keenay iyadoo dadkii deegaanka la yiri ka guura shirkadu waxay qabanaysaa aan la ogeyn kalluunkii ayaa la dhameeyay imika waxaan ku sii doonaa markab caalamka lama arag kalluun intaa la eg oo mar qura la qaban karayo dadkii gurayay ayuu ka dulmaraya waa shirkad u shaqaynaysa Dubai niman Hindiya baa loo soo dhiibay Soomaaliya ayaa ay ka dhameeyeen oo xalfiyeen bal horta aan ku tuso kalluunka Soomaaliya sida loo daldalanayo oo Dubai u daldalanayso assalaamu calaykum shirkadan waa shirkada la yiraahdo Ras Al Khaimah International Fishing Company ee Imaaraadku leeyahay ee ka kalluumaysata badaha Soomaaliya waxay ka kalluumaysataa Puntland badda cas iyo badda iyo Indian Ocean-ka waa ilaa waxay ka xaafuunka ilaa Kismaayo ilaa Sanaag bay soo gaadhaa Somaliland bari waa shirkada aad aragtaan say u xarfisay waa Hindi baa u shaqeyso shaqaalaheeda waxa weeye wad arkaysaan kalluun kuma hadhin xabad kalluun dalkii kuma hadhin Soomaaliya iyo Somaliland iyo Puntland intaba u dhamaatay wad arkaysaan si loo xalfiyey ee ilaa shacabigii dhagaxii la qaaday xataa wad arkaysaan waa kalluunkii waa gobolada bari oo dhan ee Indian Ocean ayaa saa loo galaya Soomaalina waa isku maqan tahay oo annaga beeshayadii annaga jilibkayagii annagoo reer hebela idinkoo reer hebelebele isagana halkaa ayaynu ku eegi doonaa waxaan eegi doonaa haddii ay ku riinahay